بسم الله الرحمن الرحيم كانوا 10 kale oo kamid ah casharadeen imtixaanaha ahaa waana 10kii afraad wuxuu ku saabsan yahay qayb kamid ah qaybaha asaasiga ah ee aljabrada sida hore ula soconay waxa inoo soo hormaray dhowr video oo aan uga hadalnay casharo saddex ah oo bilow ah base now ah aljabrada inuu qofku fahmo qaybaheeda sare hadaba casharkan wuxuu ku saabsan yahay sida ciwaanka ka muuqata translating words into algebraic expression taasoo looga jeedo hadii erey Ingiriis ama sometimes luuqad kalena way noqon karaan lagu siiyo inaad u bedeli kartid aljabra maxaa looga jeedaa luuqadaha way kala duwan yihiin dadku ku bartaan laakiin tan anagu ay noogu beeskareysantahay maadaama ay Ingiriis tahay Ingiriiska ayaan soo qaadanayna marka arinta waxaa looga jeedaa hadii aad aragtid tusaale miiskan kala dan fiirino operation ayaa inta noogu qoran column-kana waa addition subtraction multiplication ilaa iyo kan u dambeeyo waa division iyo calaamadahoodii mid walba sida calaamada division lagu yaqaano tan isku dhufashada kala jaridda isku darka intan waxaan ku qornay keyword ujeedada table-kan waxa weeye inaad hadii aad addition taqaanid ereyga addition calaamadan taqaanid plus-na sidoo kale iyaduna waa addition sum-na waa addition increased by waa addition more than waa addition dhammaan intaas waxay sheegaan wax kala ma aha in addition sheegaysid ayay ku tusaan oo mar walba lagu ma qorayo marka xisaab aljabra lagu siiyo numbers sometimes statement ayada ayaa lagu qorayaa statementskiina calaamadaha waxa laga yaabaa in la isticmaalin la isticmaalo plus ama the number 5 and increased by another number 10 saas kala lagaan u dhahadaa waxa la rabaa in marka aljabra u bedelid taas waa ciwaanku uu yahay translating words into algebra subtraction ka aragno minus waa caan calaamadaasna waa caan subtract waa caan difference waa iyadana wax kala ma sheegto kala jirid ay sheegtaa decreased by waa kala jirid less than waa kala jirid multiplication waxa la mid ah times product multiplied by twice intaas oo dhanba waxay ku tilmaami doonaan hadii aad aragtid isku dhufasho isu qaybintana waxa kamid ah divided by ratio quotient iyo kuwa kale oo aan inta halkan ku qoran dhamaantood intaan ma aha in aan ku soo koobnay laakiin kuwa ugu caansan ayaan qoranay hadaba ujeedada miiskan wax kale ma aha laakiin waxa weeye inaad taqaanid mustaqbalka hadii lahayd markaad isticmaali doontid aljabrada iyadoo qaab qoraal lagu qoro inaad fahantid ereyadan si aad u awood ugu yeelatid inaad u bedeshid algebraic language ama math language aadan mar walba waxa u malaynin in mar walba lagu siin doono nambaro kaliya khaasatan markaan u tagno qaybaha word problems kala dhaho waxa laga yaabaa sentence dhan oo aan hal erey ku qornay hal number uusan ku dhex jirin in lagu dhaho wax kala soo dhexbax markaas ay aad ku caawin doonaan sida darteed miiskan aad ugu warhay bal aan aragno example marka okay qaybteena noogu horeysa examples ayaan halkan ku qoranay example-ka wuxuu leeyahay translating to algebraic equation sentence ayaana loo qoray anagana la rabaa inaan u bedelano qoraal algebra write each English phrase as an algebraic expression let y represent the number markastoo aan aragno the number meel ku qoran labada erey ee the number y ayaa noogu taagan oo inoo matali doonto okay midka koowaad wuxuu leeyahay the sum of a number and 9 sum maxaan soo baranay isku dar inay tahay a number waa y and 9 and maxay la mid tahay waa aniga meesha kuma qoran and waa plus iyaduna so the sum waa plus kaas the number kiina waa kan 9 kiina waa kan so sentence ka dhan waxa la mid ah intaan y plus 9 ayaa waxa kula mid tahay the whole sentence ka number 2 wuxuu leeyahay 11 less than a number falartiisa soo raac 11 waa kan y dina waa tan oo ay number 11 less than markii aan isku nirina waxa la mid ah minus 11 ayaa waxay noola mid ahay 11 less than number 3 twice a number decreased by ayaa halkaan ugu qoran haddaan falartiisa soo raac meesha xooga ciriiri ugu ahayd twice a number waa kana waa number laba jeer
lagu dhuftay ama laba lagu dhuftay numberkana waxaa xasuustaa inuu ahaa y. So twice a number oo dhan baa intaan isku ah. Decreased by waa calaamada kala jarista. 7 na waa numberka caadiga ah. qaybta afraad waa arki doonaa waxyaabo jir gaar u baahan hore xoogaa marka socona arki doonaa laakiin hadda aan example-da dhameystirno. Number 4 waxayna leedahay the product maxaa ogeyd isku dhufasho of a 9 and a number. waatan marka falaarteeda soo raac waatan the product waxa u taagan dhibicdaas oo isku dhufashada ah. calaamada isku dhufashada oo dhan waxa u dhigma the product 9 iyo y ayaa isku dhacay. So sentence-kan ah the product of a number and y oo dhan wuxuu la mid yahay 9y symbol. 3 more than the quotient of a number and iyo 20 waatan iyaduna the quotient of a number and 20 waa intaan xasuusno more than ayaa halkaan lagu qoray. more than taas wax kale maaha waa isku dar. more than 3 marka waa kan calaamada more than na more than na waxaa u dhigma calaamada isku darista. haddaba halkaan waxaan ku aragnay sentenceyadan ingiriiska ah inay u taagan yihiin algebra. ujeedada cashirkan waxaa weeye inaad haddaa aragtid sentenceyadan some, less than, more than, the product, quotient of, ereyadaas oo dhan inaad isla markiiba fahmi karto. ma isku daridba ma kala jaridba isu qaybin miya haddana adigu in awood ugu yeelatid inaad bedelatid. waxyaabo fiiro gaaran u baahan ayaan eegaynaa. haddaba waxaa fiiro gaara kaaga baahan waxyaabahan soo socda oo dhan. si taxadir la qaybahan u fiir. number 1 oo kale 10 less than a number waxaa loo qoraa sidan y minus 10. waa qaybihii hore oo kale laakiin si gooni ayaan ugu fiirsanaa. waxaan si gaar usii fiirinaa erayadan less than, more than, subtracted from iyo quotient of. ereyga less than meel kastoo aad ku aragtid less than midigtiisa waxa ka jira marka aad xisaab ahaan u qori doontid horey buu imaanayaa. bidixda waxa ka jirana gadaal ayuu tegayaa. tusaale ahaan less than baan niri a number xasuusno waa y wata midigta ka xigta horey ayay imaanaysaa markaa qoraysid aljabrada. 10 na gadaal ayay tagtay. waxaana saa u noqota haddaad si careful sentence-ka u fiirisid 10 less than a numberka ayaa wax ka go-ayaan. macnaha a number ayaa wax ka go-ayaan because 10 ayaa waxay tahay less than waxay ka yar tahay ama laga jaray a number oo ah y. numberkii ma naqaan numberkaas wuxuu noqon karaa 40 20 30 xartidhe. more than ayaa la mid ah. more than meel kastoo aad ku aragtay midigta waxa ka xiga waa kana hadda waa a number horey ayuu imaan doonaa. waxa bidixda ka xiga oo xagga iyada ka xigana gadaal ayuu tegi doonaa. 10 more than a number waxaa loo qoraa sidan. midigta wixii xigay a number buu ahaa waa y-da horey timid. bidixda wixii ka xigayna waxay noqotaa. so adiga mar walba less than iyo more than marka aragtid base-kaaga muxuu yahay iyaga laftooda. okay waxaa leedahay midig wixii ka xigay hore iyo kan bidix wixii ka xigayna gadaal ayay tegi doonaa. 3 the quotient of markaan aragno the quotient of a number and something. hadda 10 baa inoo qoran waxaa loo qoraa sidan. mar walba waxaa fiirinaysaa the quotient of ereyga ka dambeeya a number ba hadda ka dambaysa kor ayay tegaysaa. kan dambana wuxuu tegayaa hoos. the quotient of a number. okay of yaa ka dambeeya a number waa y kor iige and 10 kiin hoos ayuu tegay. so halkaa waxaa ku aragtaa iyadana sidaad ku cabiran doontid. the quotient of baa waxay tahay koreeyii oo ah shaygii la qaybsanayay ah kor ayuu tegi doonaa. hooseeyuuna wuxuu noqonayaa waa shayga wax qaybsanaya oo divisorka ah isaguna hoos ayuu tegaya. saddex shay ay haysaa marka hadda less than, more than, quotient saddexda way haysaa. number 4 a number decreased by 10 waxaa loo qoraa sidan. decreased by markaa aragtid decreased by caadi waay straight forward sida u qoranta in numberka hore soo jiray numberka marka hore imaanaya arag. a number waa y hore ayay timid. macnaha waxa weeye haddaan dhihi lahaa oo kale 8 decreased by 3 oo kale waxaa u qoran lahaa 8 oo hore ii imaanaysa
tusaale marka caadi hadda aan qoro 8 decreased by 3 oo kale hadana saas aan qori lahaa 5 ayaa ila mid tahay marka decreased by-du sida caadiga ayaa aad qoraal ahaan aad u qorayso ingiriiska ayaa xisaab ahaan u qoraysaa okay 5 a number subtracted subtracted from 10 waxaa loo qoraa sidan iyadana straight forward waa a number subtracted from 10 yaa wax laga go'ay so subtracted from fiiri marka from waxa ka dambeeya wax laga goosanaya 10 wax laga goosay 10 hore keen waa idana gadaalkee mar walbana shayga hore la keen ayaa wax laga goostay so taasna waa straight forward la marka u dambeeya hadaan degdeg ku marin mar walbaba subtracted from-na waxa iska eegaysaa baan niri from-ta waxa ka dambeeya hore imaanaya okay leh waxa weeye 10 less than number waxa u qoraysaa sidan sorry artan waa midan u baahna aad aan u fiirino marka 10 less a number waxa loo qoraa sidan ogow less than marka haysanay si kale ahayd sababta adantaas wax kala duwaysa less than saana ahayd laakiin less a number marka la dhaho straight forward waa 10 kan hore keen waa idina gadaalkee maxaa difference keenay less than iyo less a number ayaa laba macno kala leh qaybahana waa qaybihi fiirad gaar ah u baahnaa aan sii soconno waxaan halka aan uga guda galaynaa homework adiga aan ku siinayo oo aan rajeynayo inaad kasoo shaqaysid homework-gan waa isla qaybta hadda aan sheegnay qaybtii jawaabihiina laguma siin adiga ayaa la rabaa inaad kasoo shaqaysa haddii la idmo haddii wax kugu adkaadaan commentska ayaa ama email noo soo dir ama hoos commentigaaga kusoo qor si aan insha allahu isula fiirino haddaan mar labaad recap sameyno ujeedada casharkan maxay ahayd kow inaad fahamsan tahay erayadan oo qoraal ah mid walba xisaab ahaan operationkoodu wuxuu yahay ma subtraction ba oo kala jarida ma isku darid ba ma isku dhufasha ma isku qaybin ba iyo wixii la halmaala iyo si taxadar leh inaad u fiirisid sida loo qoro sababta orderkooda ayaa aad muhiim u ah marka intaas ayaa casharkaana kusoo gabagabaynaynaa waa inoo casharkeena dambe oo equationska iyo wixii la halmaala ku saabsanaan doona wabillahi tawfiiq